بسم الله الرحمن الرحيم marka hore ilaahay baa mahadle marka xigtana waxaan maanta shirkada jiraayid maanta aan isku keenay wuxuu daaran yahay in dadweynaha la socodsiino faldambeed kasta dhaca sida waxa amray taliyaha ciidanka booliiska in faldambeed kasta oo culus la socodsiino dadweynaha magaalada Hargeysa taariikh markay 23 bishii 2019 abaarnimada habeenimo waxa baabuur weyn oo UD ah laga dhex ka haystay magaalada Hargeysa waxa ka haystay kirishbooyigii baabuurka la socday isla markii warkaasi soo gaaray ciidanka booliiska waxa uu taliyaha ciidanka booliisku amar ku bixiyay ama ku siiyay dhammaan ciidamada fadhiyada booliiska ay ku sugan yihiin inay qabtaan baabuurkaasi maadaama uu soo maray galka Warsamaxaad oo ah soonaha qaybta booliiska Oodweyne iyagii ayaana gacanta ku dhigay baabuurkaas weyn ee UD ah isla shalay 9kii subaxnimo waxay ciidanka booliisku qabteen baabuurkii lala baxsaday ee UD ah waxaana ku qabteen dooxa Gawaanle oo 30 kiiloomitir xagga waqooyi ka xiga Oodweyne isagoo bad qaba waxaana baabuurkaasi qabtay ciidanka booliiska ee Oodweyne iyagoo ciidankii booliiska ahaa ee halkan ka diray taliyaha ciidanka booliisku iyo dhibanayaashiiba ay dooxaasi iskugu tageen iyagoo wada socda baabuurkiina gacanta lagu hayo oo bad qaba taasi waxay marag muujin cad u tahay sida ay ciidanka booliisku diyaar ugu yihiin faldambiyeed kasta oo dhaca ka hortagiisa soo qabashadiisa si ay ciidanka booliisku gacanta ku dhigahayeen ciidanka booliisku si aad iyo aad ayuu taliyaha ciidanka booliisku ugu amaanay soo qabashada baabuurkaasi waxaana arki kartaan baabuurka xalay la xaday labadii habeenimo ee haddana isla 9kii subaxnimo ay ciidanka booliisku qabteen baabuurkiina halka buu yaala xerada waana arki doontaa taliyaha ciidanka booliisku wuxuu si adag amar ku bixiyay in la daba galo waa lagu maqan yahay baabuur iyo ciidan baa ku maqan insha Allah bismillaah kariim waxaan rajaynaynaa in gacanta lagu soo dhigo si maxkamadda lagu horgeeyo waxaana dadweynaha si bug lagu codsanaynaa inay falalka noocaas ah ee foosha xun leh ee dambiga ciqaabeed keeni karaya inay ka waantoobaan waana ku ilaahay casawajalaha ayna dad islaam ay naga dhigay iyo mahadle waxaana biliiska dawladda Soomaaliland iyo biliiskeeda baan ugu mahadnaqaynaa sidii diiranayd ee ay uga hawl galeen gaadhiga soo qabashadiisa intaanaan halay gaadhin bay waxay gacanta lagu dhigay si mucjisaaba loo qabtay wadanka oo dhanna biliisku isku xidhay aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa oo ay mahadsan yihiin si sharaf lana way soo qabteen hawlgalkooduna mid ajaayib leh oo la yaab leh waxa gaadhiga waxa la baxay 3 habeenimo 7diina biliisku gacanta ayay ku hayeen ayagoo ku hareeraysan markiiba si degdeg ah u qabteen